عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بالإسلام بين قلوب المسلمين وجعل الدين رباطا متينا قويا بين المؤمنين، وأمر بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفرق في كتابه المبين. قال الله تعالى: وهو أصدق القائلين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أحمده وأشكره وأستغفره، هدى من أراد لأقوم طريق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مانح الهداية والتوفيق. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد أولو التصديق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، كما أمرنا الله تعالى بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان والإسلام، خطبتنا جمعة waxay ku saabsan tahay inaynu ku midowno kitaabka Ilaahay inoo soo dejiyay jalla wa ala, ummaduna sida Ilaahay uu faray jalla wa ala midnimadooda ay wada ilaashadaan. sida oo kale Ilaahay wuxuu faray dadka muslimiinta bulsho kasta oo meel ku nool inay samaha isugu kaalmeeyaan. ومع ذلك الله لو وحي معصية أنا isugu kaalmaynin. sida awgeed baa Rabbi wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala: واعتصموا بحبل الله جميعا. xariga Ilaahay qabsada. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xariga uu ina farayo inaynu qabsano, isla markaa midnimada uu nagu farayo waa tawxiidka laa ilaaha illallah muxammad rasuulullah. sida awgeed baa in xariga Ilaahay la wada qabsadaana wuxuu keenayaa bulshada muslimiintii inay ogaadaan meel kasta ay joogaan inay walaalo yihiin. sida Ilaahay inoogu cadeynaya aayad quraanka kariimka ah kamid ah: إنما المؤمنون إخوة. الله وحي لا إله إلا الله محمد رسول الله كقولين خالصا لله وولاله ميل كستو أي جوغان في مشارق الأرض ومغاربها. إلهينا سبحانه وتعالى رسولك محمد وينوصو دري نحريسي نبتقول يكركي ساعاته markii islaamnimadu ay fidaysay ee Madiina uu tegay, bulshada muslimiinta waxa uu faray midnimo. laba isugu xidhay
ansaar iyo muhaajiriin buu walaaleeyay markii islaam mid la helay oo diinta islaamku muddadii aynu ay Maka joogtay may hana qaadin laakiin waxay hana qaaday markii rasuulka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uu Madiina tagay ee uu walaaleeyay wax qabadkoodii koowaad waxa uu ka shaqeeyay midnimada muslimiinta waxa uu ka zuuliyay oo ka nahiyay وعلى وحي خلاف أبوريا بلشدة بربرينيا ثانيا قضب كلوات ولا لماذا كحيا وفري وحيا هيد أمنيا إني إلى شذان سببتوا أمنيا إيمانك أي ولا لا ولا لمدبأ إيا إسلام لمدبأ إيا أمن الإسلام markaasay suuroobaysaa walaalnimadii inay hana qaado bulshadu dalkooda iyo diintooda iyo dadnimadoodana ay dhistaan ilaahay subhanahu wa ta'ala isagoo inooga digaya khilaafka wala tanaasacu fatafshalu fatadhaba riihukum ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ka nahiyay muslimiinta in la murmo in la iskhilaafo sababtoo ilaahay wuxuu leeyahay jalla wa ala hadaa murantaan awoodiina macnawiga iyo tiina daatigiiba way tegaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala marka amniga waxa uu si fiican uga hadlay quraanka kariimka isagoo aad uga hadlaya haddana hal aayada oo quraanka kariimka kamida suuratu nahl aayada 112 إلهي وحليه سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا كانت قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيسد له الدنيا بحذافيرها إلهي سبحانه وتعالى وحمثل يتصالب وحاولنا غسين يا آيات القرآن الكريم كأكملة وضرب الله إلهي وعدين يا بلشد المسلمين تأه سقوين الدرنسين يا أبني يا فايدة دوليها ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة مقالو قرية وأم القرى ومكة كانت آمنة مطمئنة وهي مقالة دقن ضدكوضو أي حسلويهين مقال والبدو عادي نبي الله إبراهيم انتو إلهي وأقبلي ayaa waxa loo keenayay dalal kale fog nicmooyin ka baday Shaam tahay haday Daa'if tahay haday Yaman tahay waxa la isugu keenay wixii baxayayba Ilaahay subhanahu wa ta'ala fakafarat bi an'amillah markii rasuulkeena Muhammad Allah soo diray ee quraanka kariimka Ilaahay uu soo dejiyay ayay nicmadii Rabbi oo iimaanka iyo diintu ugu yahay bay ka kufriyeen rasuulkii loo soo diray naxariista uu ahaa ayay ka kufriyeen faadaqaha Allahu libaas al-juu'i wal khawf tabeena ilaahay wuxuu sida huga oo kala uga dhigay gaajo iyo cabsi bima kaanu yasnaa'uun ummad kasta oo ilaahay ka hortimaada oo nicmada Rabbi ku kufrida ayay aayadaasi khusaynaysaa oo ay u dhadhami weydo in kitaabkooda quraanka kariimka iyo sunnaha nabiga ay ku dhaqmaan ilaahay talada ka qaataan qof waliba isagoon cidna danaynaynin amalkiisa ilaahay uu khaalis yeelo tabeena si wada jirana ay u dhowrtaan waxa ka dhaxeeya ilaahay subhanahu wa ta'ala فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف يكون قبسة النعمة الربي مركي ككفريين حتى إنه آيات كلا الله آخرينه
إلهي سبحانه وتعالى وحاو فريا مسلمين تعنبو ينوغا ورميا هرتا وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها نعموينك ربي إيمانك يا أمنك وقوي هاي مطرين كرتانبا واحتر الله قومي كرانا معها ومع ذلك إن شكرتم لأزيدنكم هذا الشكر ذا وإيمانك يا أمنك يا النبي الله يدين صادر يا قرآنك كل شكر ذا إلهي بإذن زيادين يا إيمانكين أمنك هذا كل شكر ذا والذين زيادين يا هدي لوايو إن عذابي الشديد ربي وحلي سبحانه وتعالى هذا بالوجاد عرض إلهي عقابك سودريه رسولك إن محمد صلى الله عليه وسلم وحولي من أصبح آمنا في سربه قفك إلهي سبحانه وتعالى آمن وكرده أمن وصيه عشر عافمات غبنا هيستا وحو كنا ولا لا بلورت معلومة كلها شغلنا معلن تانا هيستا أو أمني عافمات يوم كوحول الله هيستا فكأنما حيست له دنيا بحذافيرها حد مودا إن إلهي سبحانه وتعالى الدنيا دي بوكل مية حين كقاضنا مرك هالكام فالخائف على نفسه أو ماله وأهله قفك هدو بقيه أو نفتي سو بغنيه أم بمالكي سو بقيه أم بأهلكي سو بقيه suurtagal uma aha inuu xadhiso iyo noloshiisa inuu u qumo oo nin walaalkii iska eegaya irbad dun ma gashan karayo sida awgeed baa nabigu wuxuu sawir buuxa inaga siinayaa ummadu haddii ay amni weydo dhismana weyday isla markaa cabsi iyo xanuun iyo jahli iyo gaajina waa u malaabuda ummad aan isku tashan ومن أمنية ولا إلى سنين ومضى حق ولكن وكل يعني إلى لين أو ككوين عن احترامين ككير عن حريصين إلهي عن إسكت السين سبحانه وتعالى تطبيقنا إن كتاب القرآن الكريم كاسيه هو يهلك مباحيه فالأمن إذن هو الأساس بكل خير كما حد كان سأمنه إنه نلول وياهي أساس أردن خير أردن با سيدا وكلا في النظر يبلايده وحاي السبب ويهين كلا فرفر كومدا سيدا أوجد بو إسلامكو أمنه ويلالي شريتان كبلشمل كنا إسلامنا من نوين وعظيم وقاضي وغدقي ومع ذلك هدي لوايو النقمية عذاب باكوس على الذين كفروا بأنعم الله حلال وحي إلهي ككفرية سموه ديقي وايو خير مكة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف محاواتي بمركة إذن فالواجب على الإسلام في كل بلاد ومكان meel kasta oo muuminiintu ay ku nool yihiin inay ogartaan oo ogaadaan ilaahay wuxuu abuuray subhanahu wa ta'ala oo cibaadadiisa waxa kaloo uu abuuray makhluuq inay is anfacaan oo walaalka islaamka markii iimaan laga helo waxa la faray muslimiinta inuu anfaco aqoontiisa uu ku anfaco علميس يهنتيس وكوانفو سيدا أوجد بها وحو كبلام يا درسكاغا وعبد الله ولا تشركوا بالشيء وبالوالدين إحسانا وبذي القربى بلوفر سدين إسلامكم أولا وحلقوا فريا الله معبود كاغا خالقاغا وحو كو أمور إنا دلالسو ثانيا محلقوا اللي إن لبدا والد سبب كوجوها وجودك إلهي باكوابوري لكن سبب نلش هذا اللي بدأ والد باهو حقه دينات كراته إنادو إحسان فرشو إنادو قاتي إناد عاق كل نقطعين كبائر تكملتهاي اللقونا فري سإسلام كاللقو فري إلى علمت حق والدك وبذل الغرباء محاكو وحية حق قرابض وأي كقول لهذا
qaraabadaasi dabcan waxa la yiraahdaa waa wixii aabba iyo hooyo kugu soo dhawaaday amba adeer iyo eedo abti iyo habar yar iyo wixii ay dhaleen maxaa ku xiga xuquuqda markaa waliyataama wal masaakiin awalan dadka waalidkood dhintay iyaga oo yaryar iyo dadka kaaga khaldamin ogow waa xaq ilaahay bulshada uu isugu xiray ومع ذلك كوا باهان فرها مرل حقو ذي العالي قرآن الكريم كي دين توي نفريا ودين نرشين يددني مدين يا أمنين يا إيمان كينا بدسه الله ينوم معانيه وحين قلنا بشي بركة سنة رمضان إلهي عافمته ينو قارسيو محاب مال ما هينو قدمان محلش معايا ينجحي قبل رمضان مع الميرو ترسنو مع دوداد ويه أبلغ مرمان إنه إلهي توبت كأنه ربي سبحانه وتعالى وحي نجحل دمي رمضان إلا رمضان إنه كتوبت كأنه حق بني آدم كأنه ظلمني حجاب عمل كأنه كنيا ينسكعينه ولا له أي سامحان oo waxa laabta ku aad ugu hayso muslimiinta kale si amalkaaga qaaliga ilaahay uu aqbalo shibisha barakaysan ee ramadaan macaankeeda aad u hesho ee khayr u kulansan yahay in aad wixii qadal lagu lahaa soominta ka gaarsiin karta samayso xaqa bini aadanka dulmiday iska celiso macsidii ilaahay aad ka gashay aad u toobad keento si macaan aad ugu gasho bisha barakaysan ee ramadaan هبينك قيمها بضله قالقة الليلة القدر ربي وكم مقعابي كن كبلود لاجري ودك ميدور يستيتك السنو إلهي وكوا فتشيو أدو قبت بادو ضدك أنا عماش بذا الله أقبل إني أنباني قد بيني برمضان يغيروا رمضان ومسلمين تقلبي قوح إسوها هي السنين كسته iyo khamiis ka saacamaasha isagoo khaliqeen umar walba inaga warhaya hadana waa la gudbiya hadratu rabbi baa loo gudbiya oo la soo celiya walaalka caloosha xun leh ee muslimiinta kale caloosha wax ugu haya sida awgeed baa ilaahay adoomihiisa dhabta waxa uu ku tilmaamaya wal kaadhibiina al ghayda wal aafina aan الناس wallahu yuhibbul muhsinin amalka inuu gudbo أما إلهي كا أقبله أيضا هاليس وجرته سدا أوجد بقى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وحاو فردتك حتى يكون صورة قلت ما إنها تسيحته أذون قف مسلم علوش وحوها إنها تسيحته عمل كا اللي وحكوبات إن معاه إلهي نسيي إيمانك وقالسا وراس مالكيني inaad ilaashato oo laga maarmaan maxaa ka dhaawacaya macsida ayaa ka dhaawacaysa dunuubta la gelaya ka dhaawacaysa waxa ugu khatarsan dunuubta bini aadanka ka gelayso xanle dhacle ayle qadafle caloosha wax loogu hayale xaqiraadle فلا تسكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى حتى إن هذا أمانته أو وراءها كلو حكى شيكته أي دبتي ذا توليبا علامات كآخر الزمن كا والله بضا ميل وضفرديا أم بإنت ميل وضفرديا إن إيس أمانان مخلوقة إنت كان يحكى شيئان وخطر إيمان كاجا هالسكوا إن دولا لها حقرت أذقنا أدس أمانته سيدا أوجد بار رب الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى إلهي بالا أنا إذن كلا قرني يد ذلك إذن كو عمل فلا نفني يس أمان أو أنا يسوق ظن إن وتدي حقها هيسو ضدك كلنا إضلال كسريين إسلام بشر رمضان نودي القروبين إلهي سبحانه وتعالى دينتي سوحه ونغفري تعاونوا على البر والتقوى إنه يسوق كلمة وناجا يلا كعبسية يدسمها دلكينا بالشكل استمشى يكون ناشي وإن دنتو دجود أي إلى الشذان مع المهن وجود بيزيد تجمع هذا السيد ده بوح الله تلا جلي
وسائل الإعلام كمسلمين تو أي وحيسو سوقت بيان هكذا قالوا أي نوع سمايستين ورباهين إنكم مسلمين تو ماشي وحيسو قد بيان وحويان خطبة الجمعة أو تطبعات كهوري وحي قبصومي أم بدعي إنه سوق بينه وحين نتفرق كرين إنه نكوضا نحن خلاف كي دولة هوسي هرقيسة لكن وحي إلهي اللغم هذية إنه دميستين إلهي سبحانه وتعالى عدة وقيل سيني محل ورنشري ويل كيدو سيا دمان دولة هوسي madaxay noo saaran tahay xildhibaanadeeda shaqaalaheeda habeen iyo maalin bay inoo hureen inay inoo shaqeeyaan habeen iyo maalin bal u fiirso hablaha matlan suuqa xaaraya ee dawladda hoose ku xidhan 24 saacba iyagoo laamiyada xaariyaad arkaysaa injineerada dawladda hoose inoo jooga waxaad arkaysaa labada habeenimo amba saddexda iyagoo shaqeynaya oo haday agaasimayaal yihiin iyo haday madax iyo mijkale yihiinba dhammaantood waqtigoodii iyo niyadoodii iyo camalkoodiiba ay siiyeen in ay u shaqeeyaan dalkooda iyo dadkooda taariikhdu ma dhimato cid waliba wixii ay qabatay taariikhda sheegaysa quraankeena kariimka ah waxa uu xusayaa dadkii xumaa oo qaaruun iyo haman ay ka mid yihiin iyo fircoon oo la leeyahay wadadoodii ka bayra iyo dadkii wanaagsanaa ee la leeyahay ku dayda dal iyo dadba anfacay waxaynu leenahay tiimka maanta inoo jooga dawladda hoose wax qabadkoodu wuu muuqdaa waxaynu ku baraarujinaynaa inay is ilaashadaan oo haday iskhilaafaan wax qabadkoodii ba xumaanaya ummadan niyad jabaysa waxa kale oo reer Hargeysa matalan ilaahay uu galad u siiyay maayir mooge oo aan qabiil ku iman codkiisu Hargeysa dhamaan ay soo doorteen haddaanu heli lahayn baalasha hareerayaacaya ma waxba u qabsoomi lahaa waxba uma qabsoomayaan farkali fool ma dhaqdo bulshadeenan markaa qiimaha badan leh ee 720 kun cod siisay waxa laga maarmaana وناقص وين كل شغلنا دخلت يصح من الدبر كلور هذا ما يو بني آدم خضعوا كيمن كرا ولا توسينية لكن لبضع عقود إنه نقبلنا وحي لمت هاي هرجيس ولا بضع اللغات لقبتي وحي ننفع يا ما هبل بينو دورنا وهبل بينو بدلي ما حي ننفع يا ما حي هرجيس اللغة تجي ما حاسومان لا ثلاث لغة تجي وحوارية إيه هردونانية cid waliba taariikhdu xusi doonta bulshadii iyo dalkii iyo dadkii ku doortay maxaad u qabatay maxaad uga tagaysaa waxaan leenahay siyaasiyiinta dhamaantood qof walba ahmiyadaada gali libaax nin ganay iyo nin galladayba og bulshaduna waa bulsho firfircoon maskax leh wax qiimeynaysa sheekh iyo shariif bale waxaan ku dari lahaa إن وحي إنه قبصوما قيبتين إنه قادنا هدين ودوينا نهاي ودوين كقروح ضبط بدن له هرجيسو قبصومي يديرت اللبيريو هدانا كقيب قادن أذو وإنت جوريجا جاية وتضع قروح ضبط بدن له السمية أذو حبك الدري وده قروح سموي ده أذون ببورك لندا كاردي هذا أركيسا هذا يربح بحضو عالم كأوب بحضو سومال ummadda reer Soomaaliland ama Soomaalida in kala midnahay waxa laga sugaa inta mushaarka ku qaadata laakiin sida ma aha caalamka kale dad u yar baxdo meel allaala meesha tagto habeen iyo maalin sidii waalidiinteenu ay u shaqeyn jireen inay u shaqeysanayaan baad arkaysaa anigu waxaan barbaaray Hargeysa marka salaada subax la tukado hooyooyinka ku nool oo mafiiqa sita oo mid waliba gurigeeda xaadninkay ka bilowdo ilaa wadada ay xaarayso oo dabadeedna marka soo toosto waalidiintii ina dhashay iyo hooyooyinkiyo garba siman oo xaafada daba iyo dacal mafiiq ba kala jeesanaysaba mushaar bay qaadanayeen mushaar kuma qaadanayeen waxay nabariyeen akhlaaqda halka maanta hooyooyin badan ay ku dhaliilan yihiin marka roobku daayo inay yiraahdaan caruurta qashka qaado biyaha inaga raaciya laagta biyaha
laagta biyaha aad raacinaysa xagee geynaysaa qashka soo isweydiisamaha waqti roobaad baa la gelayaa waxaan idin xusuusinayaa ilaahay waxa wax lagaga helayaa dadkaaga iyo dalkaaga oo aad anfacdo oo aad wax ku tarto ceebta walaalka islaamka oo aad iska ilaaliso juhdigaaga iyo awooddaadana inaad geliso inaad dalkaaga wax ku tarto waxyaabaha mucjizaadka ah ee la yaab kale ee aan arkay berigii dhawadaadii igu soo ducaysanay dhakhtarka Turkiga aan tagay la yaab kale aan arkay waxa ka mid ahaa shakhsi ay wata eeya buu gacantu ku hayaaba isaga ayaa markaa wuxuu u sidaa wax buu jeebada ku sidaa eeyii baa suuqa ku xaaray dibna intuu la soo baxay halkan gacanta la gashado oo gacantiisa geliyay ayuu ka qaaday saxaradii dibna intuu mara kale ku duuduubtay buu jeebka kala gashaday ahadka reer Soomaaliland ma suurtagal ma tahay ilaa intuu meel la gaarayo lagu rido wixii hada waa gaal wixii isaga sitay adigu isku day shacabada sharaabka aad ka cabta sidee tiraahdaa Soomaalidu kuma tuurtay xabada muuska ee aad cunto sidee tiraahdaa qolofteeda xagee ku tuurtaa tii qof walba uu is og yahay halku ku tuuro caasimadan oo aan xabadaha shidh oo warqad yar dhex maraynin oo qori dhex oo maxay ku suurtagelaysaa bulshadan meesha ku wada nool oo ilaashanaysa wadankeeda oo qof waliba diyaar u yahay inuu dalkiisa wax ku taro laakiin bulshadan oo baasaboor ajnabi deydeysa oo ka xafiiska jooga Jaanis uu eeganayo Mareykanka ugu tahriibo oo baasaboor Itoobiyaana deydeeyo oo ka Djibouti lagu helaa uu leeyahay ka ugu liitaa kii Soomaaliya uu deydeeyo laakiin maalin qalbigiisa aanay ku soo dhicin sidee bay ku suurtagelinaa baasaboorkeena sanad Soomaaliland inaan meel walba ku tagno waan ku xajino oo aan inaga inagu xiran tahay ummadu hadday wax qabsato bini'aadamka dhamaantii uu taageeraya laakiin ummad la kala jijibin karo wadaadkeedu qaybsan yahay siyaasigeedii la qaybiyay wadaniyaed aan lahayn qawaday dalkooda iyo dadkooda maxay noqonayaan waxaan jirin waxa diintu inooga diiso ilaahay waxaynu weydiisanaynaa bisha barakeysan ee Ramadaan inuu caafimaad inuu gaarsiiyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa intay naga xanuunsanaysa inuu noo caafiyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa roob iyo naxariis inuu noo soo dejiyo Ramadaan koor ilaahay waxaynu weydiisanaynaa dhammaanteen inuu naga dhigo kuwa isku tasho dalkooda iyo diintooda ba anfaca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما وصانا الله تعالى بقوله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله ثم صلوا وسلموا على من زاده الله شرفا وتعظيما كما أمر الله تعالى بقوله جل شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات رحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا رخاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم الجليل يذكركم وعلى نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله ما تسمعون. وأقيموا الصلاة.